waxaa inagu soo foodlay toddobaadka dhaqanka oo dhacaya 18 iyo 19 bishan December isla markaana lagu qabanayo Theaterka Qaranka. Waxaan ku sugannahay xarunta Awjamac oo ah xarunta dhaqanka oo ku taala xaafadda Islii. Si aan wax badan uga ogaano toddobaadka dhaqanka ayaan waxaan wareysi la yeelanay gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Awjamac Firdowsa Jamac. Bismillahir Rahmanir Rahim. aad ayaad u mahadsantahay nimco Shakaal TV. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dadka shaqeeyo oo dhan. waxaan rabnaa inaan maanta idin la wadaagno inaan soo bandhigi doono toddobaadka dhaqanka iyo aqoon isweydaarsiga oo dhici doona hadii Ilaahay idmo axadan soo socota 18 bisha December iyo 19 toddobaadka dhaqanka iyo aqoon isweydaarsiga nimcay kama bilaaban ma hadda waa markii lixaad hadda wuxuu ahaan lahaa markii sideedaad hadaan ma aragtay la covid-ka ha marka labadii bilood oo ahaa 2020 iyo 2021 labadaba waxaan sameyn weynay dadka la isuma keeni karin annaga hadaan xarunta dhaqanka ee Cilmi-baarista Awjamac Cumar Ciise waxaan aad u jecelahay inaan dadka wax baro marka dadku wax bartaan inay wixii maalinka la yimaadaan oo soo bandhigaan oo ay ma aragtay gataan oo ay ku faanaan dhahaan waxaan ana sameeyay gacanteeda ku sameeyay marka saas ayaa ma aragtay 2 sano dib ugu dhacnay marka hadda waa sanadkii lixaad oo ma aragtay u dhacay toddobaadka dhaqanka marka hadii Ilaahay idmana waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid dadka ay wax badan ka faa'iidaan wax ka bartaan ayna ku faanaan dhaqankooda fahmaan waxa waaye nimcoy dadka mar walba waxay dhahaayeen maxaa mar walba idinku wata toddobaadka dhaqanka hadaana afkeeni aan inaga adkeenin hadaana dhaqankeena inaga aynan la xoojin wuxuu noqonayaa wax iska milma dad kala ku milmayna basal ma aragtay meel hadii la bilaabo iska socotaa ma ogtaa marka qofku waa inuu dhaqan leeyahay waa inuu agab leeyahay waa inuu agabkiisa ku faanaa waa inuu bartaa waa inuu wax kale ka yaqaana waa inuu ma aragtay yiraahdo annaga waxaan annaga leh waxaasana ku shubanaa waxaasana ku sameeynaa waa arag diiwaan ugu noqono historyga awraada ama meesha uu ka soo bilowday oo Awjamac xarunta dhaqanka dadka aan fahansaneen runaantii dad badan way aqoon way u leeyihiin xarunta dhaqanka ee Awjamac iyo waxyaabaha lagu soo bandhigo asaaskeeda halku ka bilowday gorma la soo asaasay maxaa lagu qabtaa guud ahaan yani dib inoogu celi Awjamac guud ahaan waxyaabaha lagu qabto bismillah Awjamac habar wuxuu soo bilowday 2013 waxa isla bilaabay aniga iyo Wiil Cabdisaaq la dhaho marka waxaan aad uga walwalay markaas sida ay dadku ma aragtay meel ula aayeen marka waxaan Alle ilaahay inaan meel sameeyno meel yar baan siis ka bilownay meeshii baan haddana waxay noqotay the cultural hub dadka imaanayaan qorayaashu imaanayaan aan ma aragtay captive audience haysano oo dad inta yimaadaan markii qof buug soo bandhigayo dad badan ay u imaanayaan marka markiisa aan wadnaa haddana waxaan Alle ilaahay aan aad u xoog u saaro afka Soomaaliga iyo dhaqanka marka 2013 ilaa hadda waxaan wadnaa in dadkii aragtay hadda inta dhalinyaro wax akhriyaysa in meesha wax lagu akhriyo in ma aragtay hadii Ilaahay ku roon yahay ay dadku yimaadaan inay wax kala bartaan sida hadda arkayso meeshan ku taal waxaan meesha waan wada qabanaa oo ah in ma aragtay ii sheeg in afka Soomaaliga la barto in la qoro macallimiin badan baa afka Soomaaliga dad kala gaar xitaa ajnabiga badda afka Soomaaliga ayaan xoog aad u saaraa agab dhaqameedkan aad xoog u saaraa waxaan aragnay dad 80 jir kaliya ayaa hadda agab dhaqameedka yaqaan dhalinyarada hadda soo kacday oo dhan ma yaqaanaan alaabta aan hadda darbiyan waxa ku sharaxan oo dhan kabadaha iyo dambiilahan iyo ma aragtay ii sheegeen dhiisha iyo ma aragtay agab dhaqameedkeena salligeena dadkii dhalinyarada ma yaqaanaan marka waxaan aad xoog u saaraa inaan dhalinyarada ka tusno inay lacag ka sameeyaan hadda koor gabar oo intaan wax baray lacag ka sameeyso oo dibadaha u dirsatay waxay tiri hadda maalinkii lacag siin lahayd mar hore iga dhamaan lahayd laakiin hadda gacanta ayaa wax iga badheen maalin walba lacag ka haystaa marka waxaan runtii ku bogaadinaa ilmaheena Soomaaliyeed dhalinyarada waliba inay gacanta wax ka bartaan waliba inay agab dhaqameed ka bartaan lacagna ka dhaxarkaan siina gataan markaas ay jiilba jiilka kale ay u gudbinayaan markaas waxaa yimid toddobaadka dhaqanka
inaan samayno marka meesha wax akhris noqotay maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij hordhac ah goormaa la qabanayaa toddobaadka dhaqanka sanadka 2022 sanadka 2022 waxaa la qabanayaa axaddan soo socoto oo 18 bisha ah iyo 19 ka soo hor waxaan soo qabanay 6 bilood ayaan dhalinyaro wax soo barayn oo aan sheeko barnaamij la dhaho storytelling aan sameynay dhalinyaraan baray waxaan kaloo baray maartay kalaasi kale oo kala gaar ah oo maartay leadership classes oo horumar sameynay iyo farshaxanka gabdhaha iyo aad u bartay oo runtii aad yaabi doonto maalinka sidii alaabtaas ay u sameeyeen una soo bandhigi doonaa markaas annaga ay waxaas oo dhan 6 bilood waxaa lagu kala jiraa waxbarasho badan oo kala gaar mid personal maartay development qof la dhisaayo iyo midaan maartay gacmaha iyo maartay alaabta farshaxanka soo celinta xoog la saaraayo oo gabdhaha waa hore barta hadda wax baraaya dad kale marka waxa weey macallinkii ayaa maartay macallin qofkii loo ahaaba hadda macallin noqday marka runtii aad bay noo farxad gelisaa intaas qof inaan shahaado siino oo ay maalinkaas maartay graduate gareeyaan toddobaadka dhaqankana nimcay nooma aha kaliya imaada wuxuu noo yahay waa celebration waa dadkii wax soo qabtay oo waxoodii soo wada bandhigaya iyo dhaqankii lagu soo bandhigay gabayadii buraanburadii heesihii riwaayadii sheekadii aqalkii Soomaaliga la soo bandhigay ardaaga imow dadkii ardaaga inta ku cunaya oo dadkii muufii macsaro marka wixii dhan waxay noqonayaan haddana waxaan sii jecelahay nimco inaad sareenka barataan dhalinyaradiina iyo digirta iyo cuntooyinka noo soo baxa oo aad naga deysaan chipskan iyo pizzada iyo boogta marka waxaan xoog saaraa in ma aragtay wixii qofku gacantiisa ku sameystay inuu ma aragtay toddobaadka dhaqanka wuxuu uga dhigan yahay habar yar waa barnaamij aad iyo aad ma aragtay xoog badan loo soo galiyay waa barnaamij buuxa haddaad fiiriso dadka ma aragtay ka shaqeynaya oo intaas bilo soo adkeysanayay barnaamijkan wuxuu sameynayaa qofka ayuu wuxuu tusayaa inuu wixiisa u adkaysto inuu ma aragtay dhaqankiisa fahmo waa hadda sanadkan oo kale waa kana waxa noogu yaala awakening using art to tell our stories English-aan ku dhahaynaa because dadka meeshan English badan bay yaqaan awakening waxa waaye kicin nacam waxaan kicinaynaa dadka in ay ma aragtay iyaga ay fahmaan dhaqankooda iyo afkooda iyo ma aragtay agab dhaqamoodkeeda marka waxa waaye waxay uga dhigantahay qof walba markuu arko ma aragtay dambiishii ma aragtay salligii dhiishii caanihii laga shubayo haantii oo la lulayo wuxuu dareemayaa something oo leeyahay oo ma aragtay ka maqan waxaan kaloo rabaa inaan xoog saaro runtii baadiyaha ayaan ma aragtay dadkii inay baadiyaha ku noqdaan jecel xoolihii la ilaasho beerihii la ilaaliyo dadku waxay u qabaan magaalo inay tahay adduunka waxa ka qaalisan baadiyaha magaalo ma baadiya aan ma noolaan karno ma garatay waa in baadiyu ma aragtay dad jooga oo ku nool yahay oo ma aragtay dhulkii aan la soo cidlayn marka dhalinyarada waxaan ku bogaadinaa inay ma aragtay xoolo dib u abuurtaan inay geela raacaan inay ma aragtay ii sheeg looda iyo ariga iyo ma aragtay xoolahooda dhaqdaan ummadda waxay ahayn wax walba gacantooda ku samaysata xataa intay sameeyeen oo soo ururiyeen odayba aniga iga sheekeeyay bay gubeen alaabtii because waxay dhaheen jeega qaata sidii dadka wax u qabaan waxaan hadda iska dhaceen jeegaga iyo qaadada waana la bara dadkan waxoodii bay haysteen ma aragtay fandaalkoodii wax walba geed bi ka qoran jireen waxoodii ka yaabeen Afrikada kale waa qaawaneed oo harag bay xiranaysa Soomaalida wax walba gacantooda ku sameeysanay marka intay soo ururiyeen oo gubeen bay dhaheen jeegagan iyo qaadooyinkan iyo waxaan qaata sidii marka ma aragtay dadkii waxoodii ay u baabi'iyeen marka adiga ilma yaraatay ma fahmi kadid nimco laakiin isbaabi'intu waa hore soo bilaabatay in waxaaga laga nacsiyo marka waad nacaysa marka waxaad leedahay waxaanayto dhibta oo inta aad sameynayso laakiin haddaad waxaaga adkaysato 100 sano hadda eeg dhiisha 10 sano ooli ka dhaa jista waa la culaa waa deebal lagu sameynaa laakiin caagu horena waa ka baabay waana cudur soo qofku waa inuu gartaa waxa caafimaadkuna ku jiro adiguna haddaadan jilba jirka kala sii barin inuu dhimanayo wixii la waayo
وقت هوا عادة ما سنتا واسل جوجي دونا ربنا لك نقدر نلقى جارة يوم أنت دقنك دقنك سديد تبنكي سجالي تبنك محاكا لو تقدر سنة هذا وسو تشيدين يسابو الشوين تاع هذه الشرب وسو قد بين دون برامج هذا إلا لقى جارة حبريرو واتنا وحن وسو قد بينيا إن دقعي سو ما عرفتي سديد تبنك بيشة هدي إلهي ما عرفت أنا يرد إن يوم ما عرفت إيش إن وارد كل المها إنك كينان هبر وحن ربي كل إن كل شيء هذا إن كونسرت كهرس هبين كأنك أن حد لين هاي صدق كل شيء اللي جوجلية أنا قدرت كفريا وقدرنا مرك خوف أبا يكور ودن كيسي دقن كيسي هذا العقل الآن لو قد جاي مرك وين دتك عيس وين يسوي السو ما عرفت إن أبا بلان درك دقن كنوس قاطان أجاب رقمات كسوق قاطان اسكم الصوران أي دريمان إني وحان ما عرفت وحديهين أنا أو جامع وحواي هوب جاي يتها إن دبقة بنجانا كجاري وحان والله لها waxaan dinaga hadaan samicid kala ma sameynayso maanta dhaqanka maalka dhaqanka in toddobaadka dhaqanka aqoon isweydaarsiga waa inaan tagaa waa inaan ka hadlaa waa inaan ka gabiyaa waa inaan xifradeeda soo bandhigaa adiga xataa nin wax soo bandhig xogaa gabay ah in yara noo tuur ya waa open mic dhalinyarada dhan ma ogtahay marar ma siinay open mic qof bayn wixiisa soo tuur marka waxa way waxaan u rabnaa inay ku farxaan ay ma aragtay tixdooda tirsadaan af Soomaaliga baa ku sii adkaanaya hadda koor waxaan sameynay in ما أعرف قبي competition أو ما أعرف قبي يدا لأن يرد واحد هن والله competition كون نافعنا وان كعنا نعم قبي يدي ما هذا more serious نهاي مركب قفك challenge جوي وفي عنتا إن ما أعرف نصاب بندقو لا challenge جريو وإماذا المها كانوا المها درك أسوق جليو مركز نوحي نقوليسا ومر والبا ما أعرفتي جورجيسي دكتور هذا عرفت قروح بالمالكاس الكينيا ولا قضية كور واكبدي أو ما أعرف فريم للجلية مركب waxa gabar barata ka warkabada oo lacag gurigeeda iyadu joogtay ka sameeyay marka waxaan dhiirigelinaynaa habar in gabdhihii ay gacantooda wax ka sameeyaan oo ay gurigoodii ma aragtay ku sameeyaan oo ay ma aragtay dhaqankoodii iyo ma aragtay farshaxankoodii si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhameystiran fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV